buugga waadiga nolosha uu qoray Cabdirashiid Cali Maxamuud Bukhaari oo kamid ah ardayda wax ka barata dugsiga sare Al-Huda ee magaalada Hargeysa waxa uu ka hadlayaa 9 mawduuc oo saameeya nolosha aadamaha waxaana munaasabad lagu soo bandhigayay oo lagu qabtay howlka shaqaalaha magaalada Hargeysa ka soo qayb galay gudoomiyaha hay'adda shaqaalaha dawladda xubno ka socday xisbiyada qaranka maamulka dugsiga sare Al-Huda qoraayo abwaano iyo dad badan oo qaybaha bulshada ka socday Cabdirashiid Cali Maxamuud Bukhaari waa qoraaga buugga waadiga nolosha oo munaasabadaasi hadal ka jeediyay ayaa ka warramay buuggan iyo qaybaha uu ka kooban yahay isagoo mahad celiyay cid kastoo ka qayb qaadatay buugga waadiga nolosha runtii oraah badan ka oran kari maayo buugin badan baa runtii ku soo tabcay ilaahayna rabbi subxaanahu wa ta'ala waa ugu garab galay waxa runtii aan marnaba ilaawi karahayn intii garab gashay intii dhiirigelisay intii maalahaan maskax ahaan iyo waqti ahaan runtii gelisay buugga cindiga iyo laabtan abaalkiina ku hayaabaan leeyahay buugga oraadan ka oran lahaa amaal gelin maxamuud baa ka tiri laakiin runtii buuggu wuxuu koobsanayaa 9 qodob baan sii deyn doonaa 9 qodob waxa hogaamin doona dhaqanka guurka jacaylka qabyaalada waayaha Soomaalida iyo waqtiga iyo walina ciwaanka leh oo isagoo noqon doona fikirka mafruuha waalida buugga caawa waadiga haysan madasha reer Hargeysa dhammaan inta kalaba aad iyo aad baan idinku mahadnaqayaa Cabdisamed Yuusuf Guuleed maamulaha dugsiga sare Al-Huda iyo Cabdi Ismaaciil Yuusuf oo kamid ah macallimiinta dugsigaasi oo wax ka barto qoraaga buuggu ayaa ka sheekayay waxtarka buuggan u yeelan doona bulshada iyagoo qoraaga ku sifeeyay mid ka dhex muuqda ardayda dugsigaasi wax ka barata farxad weyn bay ii tahay maanta inaan ka soo qayb galo mid ka mid ah ardayda hormuudka ka ah dugsiga sare Al-Huda Secondary School maanta inuu noqdo markaasi qora insha Allah ta'ala farxad weyn bay tahay alxamdulillah rabbil alamin waxa ugu yar ee ku garab galnaa waxa weeyaan waxyaabaha ay soo saarayaan ee isku qarash gareeyeen ee ay maalkoodii galiyeen ee ay maskaxdoodii galiyeen inayna kuna iibsano oo ina kuna aynu gadano aad iyo aad baan runtii u hambalyeeynaya Cabdirashiid Cali Maxamuud kartida uu muujiyay wuxuu noo qoray buugga cajiibka ah oo buugga marka ugu horeysaba waxa ku deeqaya magaciisa Faadimo Yuusuf qodax oo ka tirsan golaha dhexe xisbiga kulmiye iyo xogayaha xiriirka carabta xisbiga wadani Axmed Safiina oo iyaguna bandhigga buugga waadiga nolosha ka hadlaya bugaadiga qoraaga buugga waxana ay uga bariyeen inuu caqliga iyo cilmiga u barakeeyo iyagoo halkaasi kaga dhawaaqay tiro buuggaaga oo ay qaateen dhammaantiin waxaynu caawa halkan joognaa Cabdirashiid waxaynu leenahay ilaahay ha kuu sii kordhiyo tacabka ilaahay ha kuu sii adkeeyo aqoonta iyo waxbarashada iyo maskaxda maxay hooyana ilaahay saaygeena siiyo annagu haddii aanu nahay xisbiga kulmiye waxaanu nahay aad iyo aad waxaan u taageernaa dhalinyarada ballankii iyo hadafkii xisbiga kulmiye wuxuu ahaa in da'yarta wax loo qabto wax looma qaban haddaad tidhaahdaana waxa weeye hooyo dalkeenu uu farabadan yahay baahidiisu way badan tahay macdan lamaynaan soo bixin laakiin xisbiga kulmiye waa xisbiga wax badan ka bedelay dalka sidoo kale waxa halkaasi hadallo dhiirigelinaya qoraalka iyo qiimaha uu dal iyo dadba u leeyahay ka jeediyay Maxamed Walaalaye oo ku hadlaya afka naadiga Hildaqan qoraa Amaal Gelin Maxamuud Professor Mawlid Cabdilaahi Yunis iyo abwaanad Hani Batun ugu dambeyntiina gudoomiyaha hay'adda shaqaalaha dawladda Sharmaake Axmed Maxamed Geele oo munaasabadaasi ka hadlay amaanay qoraaga buugga waxaanu dhalinyarada Soomaaliland ugu baaqayna wax qoraan si ay uga tagaan dhaxal loo aayo runtii in la helo qoraayo wanaagsan iyo gabayaa wanaagsani waxay tusaale u tahay inaynu dawlad wanaagsan leenahay inan walba inaga mid ah ku dadaalo inuu umadiisa wax ku soo kordhiyo waayo farxadda iyo wanaagga wanaagsan buu kala kulmaya maanta isaga adduunyada ka geysan waayo maalin buu kulli ka dhiman lahayd ka tagi lahaa waxa ugu weyn ee adduunyada lagaga tagaana waa sadaqa ku soconaysa marka hadduu buuggaasi u niyeysto khayr iyo inuu erey walbo laga dhaxlaayo u socdo kasoo inaynu ka iibsano wuxuu noqon doonaa isagoo luxudkiisa yaalla in hadiyad loogu geeyo sadaqa jaariyo socota